insha Allah caawa waxaa ka hadlayna waxa koowaad ka hadlayna waxa weeye supply and demand zones marka su-aasha isdiinta unbaa waxay tahay qofku inuu isticmaalo supply and demand zones makhasaba ereygaas inuu laftirkiisa uu isticmaalo makhasaba oo ah inuu supply ama demand zone uu isticmaalo makhasaba asagu ma aha khasab ma aha qofku wuxuu isticmaali karaa OB uu isticmaali karaa muxuu kaloo isticmaali karaa sida laga qaar point of interest uu isticmaali karaa oo BOI uu isticmaali karaa whatever asagu uu rabo uu isticmaali karaa laakiin muhiimadu waa maxay conceptiga OB-ga iyo BOI-ga iyo supply and demand wax oo dhan hal meel bay kusoo biyo shubanayaan maadaama hal meel ay kusoo biyo shubanayaan maxaa lagaga baahan yahay adiga whatever aduu aa isticmaal inaad fahantid conceptiga guud waxa ay ku socdeen inaad fahantid marka qof hadduu arko inaan anoo supply and demand inta badan kusoo celinayo hadduu arko inuusan mataqaanaa isla yaabin uusan wax kale isla noqon supply and demand zone OB waxaa dhan waa the same way marka su-aasha OB-ga meesha aad dhiganaysid iyo supply zone ama demand zone meesha aad dhiganaysid baa waxaa muhiim ah inaad ogaano marka hore marka horta marka u horeyso haddii aan u baahanahay inaad suuq aad soo ogaado meesha supply zonekiisa ah xaggee i noqoto camal supply zonekeyga xaggee isa i noqonayso demand zonekeyga noqonayso teeda kale supply iyo demand zonesku maxay kala noqdaan ama OB-yadu maxay kala noqdaan marka ta koowaad ah supply zone xaggee i noqonayso supply zone waxa ii noqonayso suuq kasta oo buy ku socday kandalkiisii u dambeeyey oo buyga ahaa waa ii noqonaya marka horta isla qabsano wax kale oo imaanaa kandalkiisa u dambeeyey oo buyga ahaa baa muxuu noqonayaa supply-gii noqonayo ama OB-gii noqonayo OB-gii kore marka shardi baa laakiin kandalka u dambeeyo shardi baa ku xiran halkaas waxa laga yaabaa dad badan inay ku wareersan yihiin shardi kandalka u dambeeyo oo ku iri suuqaygan buyga ku socday kandalkiisa u dambeeyo baa wuxuu noqonayaa OB-ga shardi baa ku xiran shardiga ku xiran muxuu yahay marka shardiga ku xiran waxa weeye saddex kandal baa horta laga rabaa inaad u fiirsatid saddex kandal baa qofka looga baahan yahay inuu u fiirsado kandalkan buy okay marka saddex kandal baa inaad u fiirsado u baahanaa saddexda kandal u baahanaa waxa weeye kandalka u dambeeyey kandalkii u dambeeyey oo suuqan buyga ahaa kow waa mid koowaad oo fiirsanayo waxaa kaloo fiirinaya waxa weeye kandalkaas kandalka ku xigo oo seelka soo noqday baa ka labaad oo fiirsanaya weye ka saddexaad oo fiirsanaya waxa weeye kandalkii u dambeeyey suuqan kandalka ka horreeyeyna waa fiirsanaya marka waxa u baahanaa waxa weeye in kandalkan u dambeeyey suuqa si OB igu noqdo ama supply zone igu noqdo waa in kandalkan kandalka ku xigo oo kan cusub oo seelka ah oo hadda furmay ah waa inuu jabsadaa fiiri waa inuu jabsadaa lowgii kan kii ka horreeyey maxaa yidhahdaa saddex kandal inta si fiican inaa ugu soo celina hadhow kale si fahman maro saddex kandal waa u fiirsanayaa shardigiya ah in kandalkan uu ii noqdo OB meeshaan inay OB ii noqoto meeshaan inay OB kandalkan inay OB ii noqdo shardi baa looga baahan yahay shardiga looga baahan yahay waxa weeye waa in kandalkan cusub oo seelka oo momentumka ahay ama momentum ma ahaada kandalkan cusub waa in lowgiis kandalkan kandalka ka horreeyey kandalkan uu jabsadaa lowgii kandalkan uu jabsadaa haddii aysan dhicin maxaa dhacaya marka oo ay noqoto kandalkan inuu kandalkan noqdo mid jabsan waayo oo saan oo kale noqdo kabacdi uu ka saddexaad jabsado marka aniga OB-gii ma kanaa ii noqonayo mise kanaa ii noqonayo marka xaggan saddex waxa uga baahanaa fiiri xaggan calaamado qoranna kan wuxuu ii noqonayaa kanal 1 buu ii noqonayaa number 1 baa ku dul qoranayaa okay kanna wuxuu ii noqonayaa number 2 kanna wuxuu ii noqonayaa number 3 marka kandalkeyga saddexaad
kanalkan saddexaad hadduu jabsan waayo lambar labo ma noqonaya marka sharci ahaan ma u helaya inuu noqdo OB inuu noqdo waxa ka wadaa inuu kan noqdo kan inuu number one inuu OB noqdo maadaama kii saddexaad uu jabsan waayo kii labaad sharci ahaan ma u helayaa kan inuu noqdo bahalkiisa OB inuu noqdo insha allah ka jaartiga caadiga tagno caadi baa iskula arkanaa may ima noqonayo OB-gii caadiga ah markaan waxaa ii noqonaya kan sababtoo kan u noqonaya waa maxay sababtoo ah kan kanalka kan jabsaday waa kan marka kanalka kan jabsado ka horeeyo ba markaas aniga OB ii noqonaya aniga marka sometimes waxa laga yaabaa dhalinyarada qaar in meeshaana OB ah inuu intuu meeshaan dhigto OB-gii meeshaan OB u ahayd meeshaan OB-ga saxda ahaa meesha hoose meeshaan laakiin asaga u taalo meeshaan u taalo kanalkaas u taalo suuqi meelahaanu imaanaya intuu soo noqdo suuq meeshaan yimaado buu ka laabanaya asaga waxa laga yaabaa inuu meel kale uu ka sugayo suuqii hadhow kale suuqi maxaa dhacayo in suuqii uu meesha ka daataa dhacayso marka meesha la fahmay mise waa ku laabtaa meesha chartkaas waa igu soo qoraa waa fahanay iyo maana fahmin ku laabo hal mar waxaa iraaday meeshan markii dhimaan joogtay iyo marka OB-ga ama hoos ha joogo ama kor ha joogo waa the same conceptigi laakiin waxa u baahana waxa weeye OB-ga saxda ah meesha ii noqonayso inaan marka hore ogaado OB-ga waxa ku yiri laba qaab buu u dhici karaa OB-gu inuu noqdo kanaladu marka meesha OB-ga ar ka dhiganaya inuu noqoto laba qaab inay noqoto in saddexda kanal ah OB toos ah la heli karo noqdo aa ku iraaday sida caadiga aa ku iraaday kanalkii u dambeeyey oo suuqan baya ku socday baa OB ii noqonayo hadda suuqaani kanalkii u dambeeyey kanuu ahaa kanalkii ka horreeyana kanuu ahaa kanalkii samaysmayna kanuu ahaa kanalkii saddexaad muxuu jabsaday kanalkii labaad buu jabsada OB-gii caadiga waxay noqonaya kii u dambeeyey ayuu noqonayo sababtoo ah sharcigiisa caadiga ah OB-nimada waa ka hela laakiin haddii ay dhici weydo inay dhacdo in kanalka saddexaad oo seelka ah kanalkan suuqan jihada cusub soo bilaabmay inuu jabsan waayo kii labaad uu jabsan waayo oo midka kii kan ma ahane ka labaad oo seelka ah uu jabsado OB-gaygii ma noqonayo kii u dambeeyey waxaa noqonayo midkan wax jabsaday midka ka horeeya baa noqonaya OB-gayga marka OB inaan dhaho inaan supply zone dhaho ama inaan demand zone dhaho waa the same conceptiga xagga intaa wata waa fahansanaa laakiin maxaa ku idhaahda OB-nimada kanalkan waxay ku xiran tahay kanalkan bay ku xiran tahay haddii kanalkan OB-nimadiisa kanalkan sababta ugu xiran tahay qaabka ugu xiran maxay noqonaysaa waa in kanalkan uu jabsadaa kanalkii labaad waxa wax fudud inay tahay umalaynaya intaas waa in kanalkani uu jabsadaa kanalkan uu saa noqdaa hadduu noqon waayo uu kan jabsan waayo oo mid ka dambeeya uu jabsado kaba soo qaadoo kale kii ka dambeeyana muuse jabsanay kii ka dambeeyaa sii jabsaday kana noqonay way soo durkaysaa mar kasta kaba soo qaadoo kale saanay noqotay kana xataa jabsan waayo mid yaruu noqday lowgii ma jabsan kii asaga ka dambeeyey baa jabsaday kii asaga ka dambeeyaa jabsaday kii asaga ka dambeeyey markuu jabsay maxaa dhacayo kee noqonaya marka OB maxaa noqonayo ma kana ii noqonayo haddana mise kana ii noqonayo labada mid ima noqonayo kana ii noqonayo ka wax jabsay mid ka horeeya markaas aniga OB-ga ii noqonayo halkaasaa OB iya intaa mala fahma hadda mala fahma marka okay maasha allah haddii markii la fahmay maasha allah marka intaa waa the same intaa hadda meesha aan kuu sharaxayay oppositekeeda baana dhimaan ku noqonaya OB waa OB ama hoos ha joogo ama kor ha joogo OB waa OB sharci marka saan oo kale kana muxuu noqonayaa suuq ku socday seel kiisii u dambeeyey kanalkiisii u dambeeyey kanalkii u dambeeyey oo seelka ah marka
OB kana kay noqonayo kan muxuu sameeyey maxaa saddex candle baa u fiirsanaysaa saddexda candle u dambayso waa u fiirsanaysaa kan rabti inaad OB ga dhigtid ka ku xigo oo markaa samaysmay oo suuqa jihada cusub samaysmayo iyo kaa ka horreeyo haddii kan jihada cusub oo samaysmayo uu kii hore uu jabiyo OB maxaa ay noqonayo kan ay noqonayo haddii marka ay dhacdo marka kan inuu jabsan waayo kan in kaa uu jabsan waayo oo suuqaani saan oo kale noqdo candle saan oo kale uu noqdo oo candle ku xigay uu jabsado asaga kii ku xigay waa sii jabsaday OB kan ima noqonayo kana OB noqonayo marka taasna waa la fahma umaleynaya okay maasha allah qof aan fahmin ma jiro umaleynaya kole haa waa lasoo qoriyaa marka intaas marka ala tagna chartiga marka ala tagno okay marka suuqaan hoos soo socday meel kasta oo B ah ii noqonayso baa calaamadsanaya marka aniga horta marka u horeyso dhakada aa kasoo bilowno ilaa safka aa ku jirno suuqan insha allah waa arki doonaa noocyada bahalkiisha noocyada OB-yadan waa arkaynaa laakiin marka hore suuqan buy buu ku socda yahan wuu isoo bedelay waa soo dhaaqay wuu nastay soo dhaqaaqa marka labada qaab insha allah noocyada muxuu ahaa isheen waa arkaynaa marka hore horta meesha OB noqonayso xaggan haddaa joogo OB hagee noqonayso kanalka u dambeeyey oo suuqan ah oo OB ah waa kanalkee oo blue ah kanalkan waa kanalka u dambeeyey oo suuqan buyga ah u socday okay kaakii ku xigay waa kee waa kan guduudka ah kaa guduudka ah kii kusii xigay waa kan marka saddexaad marka waa meesha u baahanaya si fahanno ka saddexaad miyuu jabsaday kii ka horreeyey oo suuqan kanalkaas kii ka horreeyey ma jabsada maya kani muusan jabsan kan haddana kan muusan jabsan kan ka jabsaday waa kee waa kaa maxaa iri marka xagee OB noqonayso suuqa ka jabsaday waa OB noqonaya iraado suuqa ka jabsaday mid ka horreeyo waa OB noqonayo taa waa ila fahma umaleynaya kan kay noqonaya marka kanalkaas ay noqonaya taa waa ila fahma umaleynaya wax murna ma ah halkaana wax u baahanahay inaan raadiyo adi muhiimadu waa maxsuuqa hadda dhanka ku socdo oo dhan OB-giisa haddaas waa adigu ogaan kadhid hadda halkaan oo kale haddaa suuqaan oo kale aro OB-giisa inaa helo inta badan OB-yada sababta waxa lagu kala doortan insha allah waa soo arki OB-ga wuxuu ku fiican yahay OB-gan midka OB-yada wuxuu kala fiican yihiin waa arki doonaa insha allah hadda suuqaan oo kale meeshaan oo kale xagee OB noqon lahayd OB-gii kanalka u dambeeyey suuqa waa kee waa kan kii saddexaadna waa kan kii labaadna waa kan okay kii saddexaad kii labaad ma jabsado haa marka that means kana ay noqonay kii koowaad kana toos igu noqonay marka OB-gii tooska kana noqonay marka maxaa kaloo u baahanahay waxaan malaynaa soo hoose soo koro waan dhalinyaradu inta way fahansan yihiin laakiin hal qodob oo ahaa xageeba OB-ga saxda ah dhiganayaa baa inta badan dhalinyaro laga yaaba in hoo ku wareersanayeen OB-ga saxda ah waxaa dhiganaysaa waxa weeye waa meeshii u dambeysay waa ka saddexda kandhal baa qiimeyn saddexda kandhal haddii kanalka jihada bedeshay uu jabiyo kanalka labaad uu jabiyo suuqaas waa kii midkii u dambeeya dhiganaysaa laakiin hadduu jabin waayo kanalkii wax jabiyo kanal ka horeeya dhiganaysaa markasta marka intaa waa la fahma soo ma qofaa wax soo qoray ustaad sax saddexdaas kandhal maxaa la isku yidhaahdaa anu magac gaar ah oo aqaano ma jirto saddexdaa kandhal laakiin muhiimadu waa inaad conceptiga fahantid muhiim ma ah xataa magacooda inaad taqaan laakiin conceptiga haddaa fahantid ah in meesha aad saxda ah oo aad dhiganaysid mataqaanaa OB-gaaga dhiganaysid inaad og tahay keliya haddii aad og tahay meesha saxda ah OB-gaaga dhiganaysid
waxa ogaan kadhaa meesha dee suuqa kugu ka sugi kadid laakiin haddii adoo meel khaldan aa inta OB-gaaga dhigatid hadhow kale meesha khaldan meel khaldan see ka yeelo hadhow kale suuq intuu meeshii saxda ah yimaado ka tagay ka waran marka OB waa order block baa loo gaabiyo OB wax macnaa sameynay maaha OB waxa weeye OB order block baa laga soo gaabiyey laakiin horta conceptiga min la fahma meesha OB-ga la dhiganayo min la fahma horta hamar haa soo qora inka maasan maya haddii fahmi waayo okay maasha allah halkaa waa lala fahma amalaynaya marka qodobka marka dhimaan xagee OB dhigtaa demand zone ama supply zone marka suuq marka hal mid marka OB markuu meesha kor ka raadsanayo maxaa dhahanaya aan u isticmaalaa supply zone baa u isticmaalaa marka ku isticmaalayo hoos markaa joogan u isticmaalayo marka halkan labada tusaalaba labada qaab hadda inii sheegayba halkaan aan kaga tusaa halkan maxaa iraada suuqan baay ku socday kanalkiisa u dambeeyay kanalkan u ahaa marka kanalka u dambeeyay kanalkii labaadna suuq jihada cusubna kan u ahaa marka kanalka jihada cusub muxuu soo jabsaday kanalkii labaad oo mataqaana isheen baay ku socdo soo jabsaday that means maxay noqday OB kaasa noqday halka kanna maxaa iraada kan suuqaani seel ku socday kanalkiisa u dambeeyay kan u ahaa okay kanalkii jihada cusub oo sameysmay baayga ahaa miyuu jabsaday kan ma jabsan maxaa jabsaday kaasaa jabsaday xagee OB-ga dhigta marka kana dhigta marka kanalka jabsaday kanalka hore OB-ga dhigta that's easy wax adag maahan baa umalaynaya intaas qof wuxuu soo qoray laba kandhal OB ma isku noqon karaan laba kandhal OB si kale isku noqon karaan waxa noqon karo in haddii aad areadaas dhan OB ka rabtid adaa rabtid dadka qaar waxaa isticmaalayo kale waxaa jiro isticmaalo halkan oo kale aan ka tuso qof waxaa jiro isticmaalayo kale halkan dhanba OB ka dhiganayaan areadan dhanba OB ka dhiganayaan meeshan sababtoo ah wuxuu rabaa waxa la dhaho imbalansiga maaragta imbalance waa kul dheerba garanaysa ama insufficiency in uu suuqan oo kale sometimes waxa dhacda in aan la soo wada buuxin meesha Soomaa hadda sida meeshan oo kale ka dhacdo kale fiiri suuqu kanalkan ma iimaanay laakiin kanalkan uu iimaanaya ina areadan u isticmaashid OB ahaan u isticmaashid laakiin markaan oo kale waa ina ogashahay SL weyn ina ogashahay halkan oo kale markaa dhigatid SL kan la rabtina level ka hoos madid SL weyn waa ina ogashahay almost hadda SL kan oo kale waxay noqon lahayd 20 bib kale sometimes it's okay laakiin wax ka sii 15 bib 16 bib meelahaas oo kale laakiin it's okay hadda meeshan oo kale xaggan uu kaa gelin lahaa laakiin halkaa hoose kaamuusan gashayn sababtu waa maxay waxa laga yaabaa in meeshan hadda imbalancegan meeshan ka jiray waa lasoo buuxsha laakiin maxaa dhacay in si boqol looma soo buuxino ilaa halkan muuse imaan laakiin almost 80% uu buuxsha imbalancedan insha Allah qaabka u dhacana waa arkina insha Allah marka qofka kaloo su'aal kale weydiiyay baa jira oo ah haddii toban ay noqdaan OB laba ma noqon karaan asaga in la jabiyo ma aha laakiin asaga ka horeeyo waa in la jabiyaa weeye oo meesha hadda aa ku ilaada fiiri waa in suuqan saddexda kan dhalba u fiirsanaysaa meeshan hadda OB-gan saddexda kan dhalba u fiirsanaysaa waa ku ilaada hadda meeshan area for hour kale hadda tagno OB-ga saxda ah waa helaysaa markaas hadda kaas ma jida for hour kan oo kale fiiri for hour kan suuq kanalka u dambeeyay kanalkee u ahaa for hour kan kanalka suuqan dhownka u socday kanalka u dambeeyay oo dhaco oo dhownka oo lowga u dambeeyay samaystay waa kanalkan sama suuqan dhowrka kii u socday lowga kan ahaa sama kan marka ku xigay kanka ku xigay ma jabsada asaga kankii horeeyay uu jabsadaa OB meeshan ay noqon lahayd marka laakiin dee high time frame buu noqonaysaa OB weyn buu noqonayaa marka laakiin qof weydiiyay baa jira laba kan dhal OB noqon karaa haddii high time frame ka dhigtid laba kan dhal wax laga yaabaa OB time frame OB ku noqdaan marka xagee OB ka fiirsanaysaa waa su'aal isweydiin badan OB-ga ani ahaanteeda waxaa ka fiiriyaa maadaama day trader ahay ilaa 1 hour 30 minute meelahaas ka fiirsadaa laakiin kama hoos maro 30 minute sometimes hatta 15 minute OB inta ka helo OB-ga ku qaato laga yaabaa trade
laakiin marka waa inaa confirmations badan aa soo helaa markaas. Okay marka xaggan aa ka gudba marka meeshaan OB-gan aa ka gudba marka demand zonekii OB-yada aa ka gudubna marka waxa la dhaho marka noocyada demand zone ama noocyada OB-yada aa u gudubno. noocyada OB-yada waxa weeye waa laba qaab oo OB aa la dhaho. OB waxa weeye in suuq marka kor joogo ama marka hoos joogo hadhowna waa the same marka kor joogo inay sharaxay ka bacdin marka u dambeysana ka qaal imdaasaya suuq kor u socday suuq kor ugu socday horta marka hore suuq train ku socday up train ku socday inuu hal mar uu sameeyo drop uu sameeyo marka macnaha rally base drop base drop waxaas macnaha u sameyn adiga just kaliya conceptiga ila faham maxaa ku yiri suuq ku socday hal mar kor u socday inuu hal mar dhaaq soo sameeyo markaasoo kale halkay in noqonayso OB-gii in noqonayso waxa in noqonaya dhakada u sarreyso suuqa waa OB-gii in noqonayo. mar kale waxaa jirto suuqu uusan sidaan sameynayno uu sameeyo suuq kor u socday uu sameeyo nasasho intuu soo dhaqaaqo hoos drop sameeyo base samaysto nasasho samaysto drop haddana uu sameeyo markaan oo kale xaggee in noqonaysa marka halkan concept ku jirtaa jiro oo imbalance ah conceptigaas oo ah in suuqu marka uu sameeyey nasashadan inuu imbalance meeshan ku jiray laga yaabo inuu buuxshay marka that means boqolkiiba 80 unlikely weeye inuu kusoo noqdo maadaama imbalance uu buuxsaday hadduu kusoo noqdana wax laga yaaba inuu kor kasii aada laga yaaba marka sometimes wax laga yaaba inuu meesha ka ceshto marka kaa markaan ima noqonaysa OB markaan waxay noqonayo meeshan hoose kan hoose ay noqonayo marka labada OB maxay ku kala duwan yihiin labada OB waxay ku kala duwan yihiin waxa weeye midna suuq straight ku socday oo hal mar soo kala wareegay oo waxna soo sameyn soo dhacay midna waxa weeye midna sidaan kan oo kale u sameeyo suuq intuu kor ahaa oo soo dhacay uu nastay baa haddana soo dhaca hal mar marka labada xabo OB-yada labada qaab oo OB-ga ah midna muxuu sameeyey waxaa la dhahaa mar kor jiran supply zone adu macnaha u sameyn magacyadu xataa waa xifdin laakiin conceptiga ila faham in suuqu marna OB-gu marna uu suuq hal mar oo ka helaysid suuq kor u socday oo hal mar isoo kala bedelay meesha u sareyso ugu noqonayso OB-ga marna ay ku noqonayso suuq kor u socday inuu intuu soo nasto intuu dhaqaaq hoos dhaqaaqa ka wada nasto oo hal mar haddana soo daato marka ku intiiba magacyo waxaa markuu supply zoneka yahay waxaa lagu leeyahay rally base drop maxay markuu supply zoneka joogo rally base drop muxuu sameynayaa suuq korkac sameeyey base samaystay drop sameeyey muxuu sameeyey markaa kana muxuu sameeyey drop base drop waa maxay suuq meel ka a joogay baa wuxuu sameeyey drop buu sameeyey base buu samaystay drop buu sameeyey haddana marka waxaan dhan adi hadda macno kale iskula noqon just kaliya waa inta hadda ku sheegay afka kaaga sheegay meeshaan kaaga sharaxay suuq straight ku socday oo hal mar soo kala wareegay intuu samaystay intuu dhakadaas tagay oo base samaystay oo ama samaystay meel uu ku nastay meesha kore oo hal mar zig soo yiraaday hoos soo dhacay mid kalena waxa weeye in suuq dhakada uu ka yimaaday meesha sidoo kore uu intuu base samaystay uu dhaqaaqi lahaa hal mar intuu soo dhaqaaqay drop sameeyey base sameeyey haddana drop haddana uu sameeyey انت ما الفهم انت waxa ka wad macnaheed ma fahmo وما لا فهمها لا مقلمية اوكي marka intaas hadda ila fahanteen marka uu joogo markuu demand zone ka joogo ama hoos ahaan uu joogana waa sidii oo kale waa intii oo kale opposite ah kan waa maxay muxuu noqonaysaa waa suuq drop soo sameeyey muxuu sameeyey nasasho hoos u samaystay nasasho hoos meesha la rabay inuu intuu saa sameeyo nasto hal mar buu muxuu sameeyey rally korkac buu sameeyey
kalena waa maxa waa suuq si kii kale opposite kana muxuu noqonayaa waa suuq hoos soo socday dhaqaaq sameeyey naqasho sameeyey dhaqaaq sameeyey waa intii opposite ah waa intii kor ahayd ka tuseeyey oo opposite ah charti qof notes buu yiri marka intaas may ahaan baalaan ila fahantaan baa rabay marka xaggaan soo supply zone ama demand zone aan tusay marka okay asaan oo kale marka waa halkan suuqan muxuu sameeyey suuqan muxuu sameeyey drop buu sameeyey drop markuu hoos soo dhacay soo ma hal mar kor muuse aadin muxuu sameeyey marka meesha hal mar kor aadi lahaa wuxuu sameeyey intuu kor dhaaqay nastay u dhaaqa kan muxuu noqonayaa waa kii dambe oo bigii halkay noqonay oo bigii meeshan miyay noqonayso meeshan ay noqonayso oo bigii meeshan hore ay noqonayso sababta almost meeshan 180 imbalance la buuxshay ku yaalo sometimes waa laga yaabaa inuu meesha hoos kusoo noqdo asoo marka waxaan tusinaya marka bahalkii ah suuq waxaan boqol wax ay keenaysaa laakiin OB sax ah suuq qalaabtay baan rabaa inaan ka tuso kana xataa noqonaya fiiriin OB gana noqonaya xataa meeshan muxuu sameeyey suuqan oo kor ku socday muxuu sameeyey hoos dhac uu sameeyey nasasho sameeyey adana hoos buu dhacaa meesha OB ga la yiraahdo waa garanaysaan baa malaynaya suuqa markuu soo kala wareegay selkan soo aaday muxuu sameeyey si kan oo kala fiirkan okay kan muxuu sameeyey suuqan hal mar buu hoos soo dhacay sama lowgii uu joogaa sama lowgii marka intuusan hayga jabsan intuu nastay miyuu haddana kor aada may hal mar buu muxuu sameeyey hal mar buu wuxuu sameeyey raali korkac sameeyey marka sometimes waxa dhacaysa qof inuu suuqii halkan asoo ka sugayo inay intee dhacday suuq intuu qof fiir halkaas sababta in ku sharaxay maxay tahay inaad fahantaan u baahanahay sababta inaad fahantaan u baahanahay waxa weeye qof waxa dhacaysa suuq kor intuu soo aaday soo dhacay nastay in OB-giisa meesha kor uu ka sugayo suuq laakiin meesha ku soo noqon meeshan la rabo inuu meeshan ka sugo la rabo suuqa oo suuq intuu meeshan yimaado OB-gan yimaado uusan ka aadin intuu OB-ga yimaado oo kan ka daato waa aragteen baa umaleynaya wax dhowr sharax xiliya badan baa inta saas kala aragteen marka qofkii soo qoray chartka notus waa akhyaar waa aragto Soomaa walaal hadda waa fahamsanaa ha isoo qora okay intaasna hadda ila fahanteen maasha allah marka hal mid baa marka insha allah aan kula dardaarmaya mid aan kula dardaarmayo waxa weeye horta confirmationka insha allah confirmationka iyo qaybtan kale oo confirmationiska ah oo ii hadhay habeen dambe rabaa inaa ka dhigta ayada iyo intrigaba habeen dambe inaa ka dhigta rabaa waxaan mar rabaa waxaan yidhahday in kuma dheeraynayo waxaan technicalku insha allah koorsadeena qayb yar uu ka noqonaya laakiin waxa aan u baahannahay waxa weeye inaad system aad dhisatid adi ahaantaada qof kasta oo koorsada ka mid ah oo aa ka arko firfircooni insha allah si free ah hadda one-to-one-ada insha allah ani free kuma qabto laakiin si free ah baa asna inaa one-to-one insha allah dhowr zoom ah asaga si gaara u dhiso baa insha allah baa siin doonaa laakiin waa qofka ka arko firfircoonida groupka iyo mataqaanaa ishaan in mataqaanaa qof uu waxaan ay ka dhab ay tahay uu yahay insha allah confirmationada maxaa lagu qaataa liquidityga mitigationka content trendiga ama saa u taqaanaan break of structureka ilaa iyo intriga marka intaa hadda aa kasoo hadlay ma wax su-aal aa ka qabtaan baa jirto qofaa wuxuu soo qoray habeen dambe soo galay may laba habeen baa zoomka soo galnaa labada habeen aan zoomka soo galno waxa weeyaan waa habeenka caawa kale maalinta arbacada habeenkeeda
iyo maalinta mataqaanaa isniinta habeenkeeda. moodka qofaa wuxuu soo qoray ustaad OB qofaa wuxuu isoo qoray drop min sell miya ustaad may drop min sell ma aha laakiin waa suuq sell kusoo socday waa ado camal sell ah macnaha suuq sell kusoo socday oo hal mar suuq oo drop intuu soo oonan de wax ma aragteen hal mar inuu kala wareego inuu hal mar rally sameeyo rally marka waa kor u kac dropkuna waa hoos u dhac inuu hoos u dhaco suuqa hoos u dhaco mar kalena waxa weeye inuusan hoos u dhicin hal mar intuu soo dhaco uu soo nasto dhaaqsan kor aado nasto oo dhaaqadana kor aado marka muhiimad waxa weeye marna OB-gii waa meeshan ku imaanaya marna OB-giga meesha hoose ku joogo muhiimadda laga hadlayo waa intaasba muhiimad macno kale maaha muhiimad waxa weeye in OB-gaaga isbedelayo un weye inaa ogaatin OB-gaaga uu isbedelayo okay moodka waan ka qaadayaa qofka su-aal u baahan moodku iska qaadi karaa ustaadi waxaan ku weydiinaa maxamed waa magaciisa ustaadi waxaan rabaa inaan ku weydiiyo su'aal kala hormara waxaa chance qofa imaan qaata ustaadi waxaan ku weydiinaa suuqa markuu isbedelayo jihada bedelanayo see lagu ogaado jihada markuu isbedelayo jihada suuq waxaan ku weydiinaa mataqaanaa ma maqlaysaa hamar u jawaabo marka suuq waa jihada trend baa dhacayo soo maaha suuqa inuu jihada bedelinayo hal meel baa ka ogaan kadhaa insha allah casharkaana waa waxyaalaha habeenka confirmationada ka hadlay kamid tahay laakiin dhimada insha allah su-aasha waan kees joogay suuqa change of trending meeshaan suuqan meesha ka fiirinaysid for hourka marka ka fiirinaysid inuu suuqan dhow trend ku socday waa inaad soo heshaa waa inay 1 minute waa in 1 minute uu jihada oo sel ku soconay uusan saac mood gala uu jihada up trend soo bilaabaa sidoo kalena waa in 5 minutes sidaan oo kale waa asna up trend ka soo heshaa waa in haddana 15 minutes ku up trend ka soo up trend uu bilaabaa that means muxuu lower time frame ku muxuu matalaa lower time frame ku wuxuu matalaa high time frame ka wixii ka dhici rabo buu ku sii tusinayaa lower time frame ku waa early confirmation ah in lower high time frame ku isbedeli rabo high time frame maxaa noqdo 30 minutes wixii ka sareeyo high time frame ka inuu isbedeli rabo hadda ka soo qaado kale hadda 15 minutes ka hadda for hour ka saan kala suuqa arkaysaa ka war halkaana maxaa jirta tusaale yar ka tusiya intaan suuqan maanta ka dhacdaa jeclaha wax ka wada shalay meeshaan okay halka ay jar suuqaani inuu meeshaan ka laabanayo iyo in kale maxaa ku ogaanayaa suuqaani inta 1 hour baa jooga Soomaa aniga maadaama aan 1 hour joogo waa in 1 minute ka 5 minute ka 15 minute ka aa ka helaa trend down trend aa ka helaa trend down trend maxaa ku ogaanayaa waa in 1 minute ka iyo 5 minute ka the last lows ki 1 minute ka iyo 5 minute uu isbedeshaayo ay noqotaan down trend aa ka arkaa okay 5 minute ka itag 5 minute maxaa ku socdaa wali 5 minute wali suuqa up trend ku socdaayo muxuu sameysanayaa high low high new high low marka halkan maxaa rabaa marka the last high low gii waa maxay the last high low gii suuqa waa meeshan soo maadaama meeshan high low suuqi ay tahay maalinta meesha la soo jabsado maxaa ay cadaanayo in 5 minute change trend dhacay in meesha marka soo jabsado oo suuqani trend cusub down trend soo bilaabo in ay dhacday 5 minute down trend maxaa laga kaliya marka haday 5 minute down trend uu bilaabmay in high time frame kan uu isbedeli rabo bi isi cadaynaya aniga marka halkaan oo kale fiiri marka socdo suuqa waa wadana hadduu meesha soo jabsado maxaa dhacayo okay muxuu sii jabsadaa haddana halkaan muxuu soo jabsadaa muxuu samaystay new high low samaystay new high uu samaystay okay my break of structure kiyo meeshaan ay noqonayso marka halkaan maalin soo jabsadaa haddana waxa ogaanaya in suuqaani uu trend isbedelay kaba soo qaado suuqa aan trendigiisa aan ogaa inuu any time frame aan ka soo ogaa inuu isbedelay haddaan meesha dhakada iska soo galo ka waran okay
uu ii jabsaday soo ma marka su-aasha diintu ma waxay tahay markuu halkan ii jabsaday halkee marka xagee dhiganay waaba kan tusaale hadda intu siiyey waa kan suuqaan muxuu sameeyey dhakadaanu tegey nasashu sameeyey dhaaq hoos soo sameeyey nasashu sameeyey halkaan nasika uu ka nastay halkaan ka nastay marka waxaa dhacaysa fiiri qofku inuu intu meeshaas dhakada ah uu ka sugo meeshan dhakada ah uu ka sugo the last temple kan weye kan xagana meeshaan ay noqon lahayd OB inuu meeshan OB ka sugo laakiin ay dhacdo in OB-gaas imaan suuqiyo oo OB-gan hoose intuu yimaado inuu intuu OB-gan hoose uu yimaado oo suuqa meesha ka daato marka adiga labadaba waa inaad diyaar u tahataa kanna waa inaad diyaar u ahataa kanna diyaar waa inaad u ahataa haddii kan uu kaaga dhufto SL waa inaad kan ageli kadib SL-ku ma aha wax khaldan ma aha marka confirmations kaloo trade-ka hadda ka fiirfiirinaya sidaan just kaliya trade ahaan baa hadda waxaan tusinayaa change of trending inuu suuqan dhacay lacagta marka maxaa dhacay marka 15 minute maxay sameynaysaa marka 15 minute change of trend ma ka sameynaysaa marka xaggana waxa awad okay marka 15 minute iyo 5 minute low-giguna waa the same that means 15 minute kun waa la soo jabsaday inkastoo si qurux badan aan loo jabsan laakiin 15 minutes waa la soo jabsan maxaa ka haystaa marka laba wax baa halkan haystaa waxaa haystaa 5 minute iyo 15 minute and trade change of trend kabacdi maxaa ogaanayaa maxaa that means maxaa soo dhow marka in haddii 5 minute 15 minute hadday dhacdo haddana 30 minute ka dhac change of trend dhacdo haddana 1 hour kabacdi suuq saas uu isku bedelay markaas laakiin hal mar suuq jihada toos uma soo kala bedelanayo waa in low time frame ka soo bilaaba change of trend taa waa ila fahamsan qofka su'aasha weydiiyey استاذ يفهم okay